wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in saaka xaalad kacsanaan ay ka taagan tahay gudaha deegaanka Yaqbir Weyne oo shalay ay ku dagaalameen ciidamada Koonfur Galbeed iyo maleeshiyada deegaan ah kaasi oo dhaliyay khasaare hoogan. Dagaalka oo qaatay saacado badan ayaa waxa ku dhintay dad ku dhow 15 qof halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo kor u dhaafaysa 20 ruux isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo shacab sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo xilkaas ah. labada dhinac ee dagaalamay ayaa weli iska hor fadhiyay Yaqbir Weyne waxaana laga cabsi qabaa in mar kale ay isku farasaaraan halkaasi maadaama ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda. ciida sidoo kale dadka deegaanka ayaa bilaabay inay ka barakacaan magaalada waxaana isugu soo haray dhinacyadii dagaalamaya. xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka soo jeeda deegaanka isla markaana taabacsan maleeshiyaadka isbaaraleyda ah ee ka soo horjeeda Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in weerarka lagu soo qaaday dhankoodii balse ay iska difaaceen ayna khasaare dhimasho leh gaarsiiyeen ciidanka xaq u dirarka ee Koonfur Galbeed soo weeraray gaadiidna ay ka gubeen sida uu hadalka u dhigay. dhanka kale ma jiro hadal ka soo baxay maamulka deegaanka kan gobolka Shabeellada Hoose iyo Koonfur Galbeed oo ku aadan dagaalka Yaqbir Weyne. Koonfur Galbeed ayaa horay u eedeysay maleeshiyaadkan isbaaraleyda ah inay isbaarooyin soo dhigteen halkaasi waxaana sidaasi ugu soo dhex qarxay dagaalka oo saameyntiisa laga dareemaya guud ahaan gobolka Shabeellada Hoose.